Assalaamu calaykum. Waa Som Crypto mar kale idiin soo gudbinaya akhbaaraadkii aa uga barateen. Galab wanaagsan, maalin wanaagsan, duhur wanaagsan iyo casar wanaagsan adduunyada meel walba aa ka joogtaan. Newskan waxaan ku eegi doonaa crypto, waxaa loo yaqaano cryptocurrency-ga ama lacagaha digitalka ah. Sida aad arkaysiinba Bitcoin kor ayuu u socdaa, waxaanan laga sugayaa inuu soo taabto 10,000 maanta ilaa iyo berri. Marka waxaan kaloo idinka codsanayaa markii aad hadda ku gadato halkaas markii aad ku gadato stop loss-kaagana bartaas ka dhig, si haddii hoos u dhac xooggan ugu yimaado aad wax badan aad u khasaarin, haddii ay faa'iido timaadane aad faa'iido badan u heshid. Waxaa khasaaraysaa almost adiga 1% ilaa 2% iska dheh. Marka isna waxaan kaloo aan sii eegi doonaa Bitcoin wuu kacayaa insha Allah. Marka horeba sidaan u sheegnay wuu kacay, haddana wuu kacayaa. Ilaahayna ha nagu guuleeyo. Waxaa kaloo asna aan ka harin Ethereum coin-ka loo yaqaano oo asna $215 ayaan ka filaynaa inuu tago. $215 ayaan ka filaynaa insha Allah, wuuna tegi doonaa. $215 ayaan ka rabnaa inuu tago, wuuna tegayaa. Waxaa kaloo asna ku xiga Stellar Lumine, isagana waa sidii aan sheegnay Masha Allah aad ayuu u kici doonaa. Isagana waxaa laga rabaa 73. Marka mar walba aad gadato oo aad 10 ama 5% kaco, stop loss-kaagana kor u qaad. Sidaas sameey. Suuqa caadi ahaan wuu fiican yahay, wax oo isbeddela ma lahan. Bitcoin ayaa hadda socda, xilligan waa muhiim, xilliyada oo kaca waaye. Akhbaar kale oo oo dheeraada ah ma lahan. Coin-anka hadda kacsan waa kuwana MCO iyo konton MCO kacsan yahay. Bitcoin asna wuu soo kacayaa. Ka hor Masha Allah wuu ii kacay, marka half aan iska gaday. Almuhiim wax kale oo news ah oo zaa'id ah ma lahan, laakiin suuqa aad iyo aad ayuu u kacayaa. Marka ka faa'iidaysta ayaan idin dhihi lahaa, ka faa'iidaysta. Mar walbana stop loss-ka ha iloobina. Stop loss-ka waa muhiim. Hadda waa arkaysiin switch-yo kan waa exchange waa kan. Okay, waa asna waxaa kaloo ii sheegayaa coin-kan ICO-giisa sanad ka hor ayaan galay. Masha Allah $6 iyo wax ayuu marayaa. 13 sent ayaan ku iibsaday. Waa exchange Australia ka dhisan. Marka koley alxamdulillah $300 ayaan geliyey. Marka 2,000 iyo wax coin oo siiyey maantana waa $6. Marka waxaan jaanisna way leeyihiin, khasaarana way leeyihiin, faa'iidana way leeyihiin. Laakiin waxaan idinka codsanayaa mar walba inaad suuqa ku jirtiin, aad la socotiin stop loss-ka iyo xaaladda sida ay tahay. Coin-kan Tix aa la dhahaa. Markii aan YouTube-kayga galno, xilliga aan iibsaday, xilliga aan video ka sameeyey, meeshaan ayay ku jirtaa. Dhib ma laha, video kale ayuu soo gudbi doonaa. Marka intaas aan isaga keenaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.